بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد إلهي مهدي waxaan maanta doonayaa halkan inaan saddex kelmadood oo kooban ka idhaahdo shirka ka socda buurta gacan libaax saddexda eray oo kala hambaliyo iyo bogaadin aan u dirayo shirka. qodobka labaad oo ah doorkii ku leedahay beesha degta bariga iyo bartamaha Hargeysa shirka iyo eray aan oranayo dhammaan beelaha kale ee Soomaaliland. qodobka koobaad shirka ka socda buurta gacan libaax waanu hambaliyeenaynaa waanu bogaadinaynaa waana shir ah ay kaga tashanayso beesha garxajiis arrimaheeda hadday tahay siyaasad hadday tahay horumar hadday tahay dhaqaale hadday tahay xaaladdan dalku maanta ku jiro hadday tahay doorashooyinka nagu soo foodhaya. markaa shirkaasi waa shir aanu soo dhaweynayno hambalyeynayno kuna faraxsanahay waana shir la mid ah shirarkii beelaha Soomaaliland oo dhamaantood qabsan jireen. markaa aad baan u hambalyeynayna. qodobka labaad beesha degta bariga iyo bartamaha Hargeysa iyo degmooyinka Sibownaag iyo Cadaadley shirka ka socda buurta gacan libaax way hambalyeynaysaa waana taageersan tahay. haddaanu beesha isxaaq ahrannahayna waxaanu nahay beeshii dhigtay gogashii iyo heshiiskii daroor ee gogasha lahayd ee garxajiis dhexdiisa ku heshiinayeen. shirkay tul wanaajowan waxaan nahay beeshii dhigtay gogasha ee ku qabatay hodheelka Maroodi Jeex. shirkan maanta socda ee beesha garxajiis uga socda buurta gacan libaaxna wuxuu ka dhashay shirka hore aan gogashiisa lahayn ee ka dhacay hodheelka Maroodi Jeex. qodobadii ka soo baxay uu kamid ahaa. markaa beeshu shirkan maanta socda ee buurta gacan libaax ka socda ee beesha saxaaqare koobay ka tahay waana soo dhaweynaysaa maadaama aanu saddexdaa shir aan soo sheegayba haday ka daroor tahay gogashaan lahayn tal wanaajowan gogashii baan lahayn oo reerkii qabtay baan lahayn kan maanta socdana shirka hore aan qabanay buu ka dhashay. markaa waanu hambalyeynaa isxaaq ahaan siyaasiyiin aqoon-yahan ganacsato salaadiin cuqaal dhammaan qaybaha kala duwan beesha saxaaqare shirka buurta gacan libaax si weyn bay u garab taagantay. qodobka saddexaad waxaan halkan uga jeedinayaa uga sheegayaa dhammaan beelaha reer Soomaaliland shirka buurta gacan libaax ka socda waa shir iskugu tageen dhammaan salaadiintii aqoon-yahankii waxgaradkii qurba joogtii dhammaan qaybihii kala duwanaa ee beesha garxajiis iyo haldoorkoodii ay iskugu tageen. beeshana waa garanaysaan waa beel aad iyo aad u miisaan ballaaran waa beesha degta ugu deegaanka ballaaran dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland waa beel ka soo qayb qaadatay hangalkii iyo dib u xoreyntii Soomaaliland waa beesha maanta hogaamisa saddex xisbi qaran dalka jira waa beel taariikh ballaaran ku leh waa beesha ka soo jeedaan raggii afkooda kaga dhawaaqay goonistaaga iyo qarnimada Soomaaliland. markaa beesha shiraysa waa beel miisaan ballaaran leh waa beel ku suntan taariikhdan iyo qaranka Soomaaliland. shirkooda maanta socdana waa shir kaga tashanayaan danahooda iyo aayahooda. beeshuna shirarkii hore Soomaaliland shir la mid bay qabsatay waxa ka soo bixi doonana waxa bay noqon doontaa wax dalka iyo qaranka iyo ummadda iyo beeshaba anfaca maadaama yihiin beel ku suntan qarannimada iyo taariikhda Soomaaliland. waxa ka soo bixi doona wax anfaca qaranka Soomaaliland beesha iyo beelaha kale iyo ummadda oo dhan. dadkuna way tashan karaan xaq bay u leedahay beel kasta inay shirto waana shiri kartaa danahooda iyo cid walba ka shiri karaan. sideen hore loo sheegay dad badan oo ka hadlay haday tahay madaxda dalka haday tahay salaadiin haday tahay aqoon-yahan shirka waxa ka soo socda khayr iyo wanaag dalka iyo ummadda iyo qaranka Soomaaliland afcin doonta. haddii aanu nahay beesha degta bariga iyo bartamaha Hargeysa iyo Sibownaag iyo Cadaadleyna waanu garab taaganahay oo gogashii hore shirkan baan lahayn kan maantana kooban ka nahay guul baanu rajeynayaa dhammaan
beelweynta garxajis meel kasta ay ku joogto daafaca caalamka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.